Waxay soo dhawaad maanta waxaan aad u dhiirgelin doonaa ciyaartoyda insha Allah. Wata ciyaaryahan kasta oo raba inuu guul gaaro, heer sare uu ka gaaro. Guusha marka ay kuma timaado hal maalin kuma timaado. Guusha waxay ka dhalataa dadaal joogto ah, dulqaad, anshax iyo kalsooni. Ma jiro haliyey ku dhashay horyaalnimadu waxa lagu kasbadaa tababar joogto ah, nafuurnimo iyo go'aan adag. Markaad goraanka gasho, ha ka fikirin cabsida guul darada. Ka fikir inaad bixiso wax kasta oo aad awood. haddii aad qalad samayso haniyo jabin oo qaladku waa qayb ka mid ah waxbarashadaada waxana qaladka ka faa'iideysaa ciyaaraanka doonaya inuu horumar sameeyo qaladkiisu wuxuu ka faa'iideeyaa idan maskaxda ku hay in tababarku yahay meesha lagu dhiso guusha dhibic kasta oo dhid ah oo tababarka kugu daato oo kaaga yimaado waxay marka dhilbin u tahay tartanka marka aad gali doonto ciyaaraanka dadaala marka ciidana aysan daawaneen ayaa marka ku soo baxa tartanka ku soo baxa idan anaga waxaan aragnaa dadka qaar waxa laga yaabaa markii dadka ay daawanayaan ee wax kale inay iskaniyaan laakiin ciyaaryahanka kaligiisa marka jabhadiya idan ciyaaryahankaasi markii la gaaro tartanka waa mid ugu cad guusha marka ugu cad inuu kooxdiis marka u soo hooyo marka hadii maanta laga adkaado ha u qaadan dhamaad guul daradu waa 10 ku diyaarinaya guul ka weyn dadku waa weyn ee taariikhda ciyaaraha galay waxay soo mareen guuldarooyin badan laakiin ma aysan quusan waxay sii wadeen shaqada ilaa ay gaareen heer ay dunida ku amaanto noqo ciyaaryahan leh akhlaaq wanaagsan waa waxa ugu horeeya waxa mugtaa akhlaaqdaada inaad wanaajiso ixtiraamkaaga tababarahaada inaad ixtiraamto sidoo kale saaxiibadaada kula ciyaaraya iyo garsooraha iyo sidoo kale kooxda ku taasoo horjeeda la rabo inaad ixtiraamto ayaanay ma garanayno idan taas la maro idan waxa la rabaa kooxda ka soo horjeedo inaad marka ixtiraamto ayaa marka loo baahan yahay markii laga soo tago tababarahaadi iyo saaxiibadaadi aad la ciyaaraysaan kooxda ka soo horjeedo waa inaad marka aad ixtiraamtaan hayloogin guusha dhabta ah in marka aysan ahayn koobka oo kaliya balse ay tahay qofka aad noqoto inta aad safarka ku jirto hadii aad yeelato dulqaad dadaal anshax iyo kalsooni waxaad gaari kartaa meel ka sareysa intii aad filaysay sidaas darteed madaxa kor u qaad qalbiga adkay tababarka siiwad hana quusan maanta waxa tahay ciyaaryahan riyoonaya bari waxaad noqon kartaa horyaal ay ku amaanayaan dadka idin oo bari waxa lagu oran doonaa legendkeenu ninkan waa legendkeenu koobkaas noo qaaday bay kooxda kugu amaan doontaa laakiin goormehe waa marka la soo baxdo heerkaaga aad la soo baxdo oo dadaalkaaga aad la timaado oo lagu arko garoomada waqtiga tababarka maana waqtigiisa ka sii hore in lagu arko idan hadaa rabto in heer sare aad ka gaarto Bologna waa inaad marka aad sameysaa tababar joogto ah waa inaad sameysaa oo xitaa ka yaabaan kuwa ciyaartoyda kula ah oo saaxiibadaad ay ka yaabaan tababarka aad ka soo hormarto mar walba adigoo inka baxayo mar hor almiintee waa inay ku arkaan saas loo baahan yahay